kula wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wiilashii Soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsi ku yaala gudaha wadanka Sacuudiga iyaga oo oonaya ayaa hadda la daldalay waana la toogtay waalidii wadaagi doona wararkii ugu dambeeyay inta harsan kawaanka ay saaran yihiin iyagoo calaalaya oo oonaya ayayna fariintan ka soo direen xabsiga shalay subaxdii baa waxa dhacday laba naga mid ah in iyagana dilkii lagu fuliyay wararkii ugu dambeeyay xogtooda iyo sidoo kale dhimashada wiilal kala duwan oo xabsigaasi ku jiray ayaan idin wadaagi doonaa waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa dagaalamayaasha al-shabaab oo loo qabtay muddo kooban in lagu soo afjaro waa kuma cid u qabatay shir Muqdisho ka dhacay ayaa arintaas lagu gorfeeyay waan idin wadaagi doonaa maxaabiistii Soomaaliland laga qabsado gooja cadde ee dhawaan la sii daayayna waxa ay sheegeen in dagaalkii la saacanood ay u aaminsanayeen inay janno ku galayaan ilaa iyo haddana ay aaminsan yihiin arin la yaab leh ayaa ka soo korortay waan idin wadaagi doonaa koorso muuqaalka like sar subscribe sar bartan ku soo biirsi aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee giiga Soomaalida aan ku bilowbo qodobka ugu xasaasisan wiilal Soomaaliyeed oo ku xiran wadanka Sacuudiga gaar ahaan xabsi ku yaala gobolka Najarjaan ee dalkaasi Sacuudiga ayaa hadda waxa lagu fuliyay dil toogasho waa la daldalay macnaheedu wadanka Sacuudiga qofku waa la daldalaa wiilashaasi laba kamid ah ayaa hadda lagu daldalay gudaha dalkaasi mid ayaa ku horeeyay kal hore oo isaguna halkaasi lagu daldalay in ka badan 30 wiil oo kalena hadda ayay kawaanka saaran yihiin sida ay sheegeen xabsiga ayayna ka soo direen fariin calaal u muuqatay oo ay sheegeen in maalmo kadib la dili doono iyagoo oynaya ayaa la dilay labadii wiil ee horeysay oo calaalaya qaar kamid ah ama mid kamid ah wiilasha xiran oo u hadlayay dhammaan maxaabiistii xirneed fariinta calaalka ka muuqato uu soo diray oo urku taalada ah shalay subaxdii baa waxa dhacday laba naga mid ah in iyagana dilkii lagu fuliyay waa garta soddonkii bishii afraad markay ahayd oo shalay subaxdii ku beegnayd yaa laba rag naga kamid ah yaa dilkii xukunkii lagu fuliyay ma garata haye markay xaaladdu halkaa marayso haddaba waxaa ka nooga cadaatay inaan de kulle wax muuqdo oo la taaban karo oo dadka naga dawladda ay noo qabatay inay jirin wali dilkiina nagu socdo annaga inta aanu walaalahan halkay mareen shalay aanu annagu taaganahay oo sugayno deegaan ma bariba albaabka la idiga saaraya bisaawa la idiga saari labada xaaladnimada inay ku soo dhamaatay waa gartay marka dawladda Sacuudiga oo aad u xirantiin gaar ahaan dadka kiiskiina gacanta ku haya maxay idin sheegayaan markaad la hadashaan waxay noo sheegayaan in nalaleynayo xukba dilkii nagu dhacay nalaleynayo noo sheegayaan markii aanu wareysana in nalaleynayo noo sheeganayo waa gartay imise qof oo Soomaaliya hadda marka xabsigan ku jirta oo xiran hadda halkan aan kala hadlayo waxaan ku jira ragga naga kale kiiska macnaha ama dilkaasi u xiran waxa weeyaan saddex baal naga baxday waxa soo hadhay 42 weeyaan waa gartay 42 kaas waa xaaladnadu waa saan ku sheegay oo badalaantaas ayaanu ku noolahay xaaladnadu nimankan haysana sida aan ku sheegay bay noo sheegeen in dil aan nahay oo nalaleynayo noo cadeeyay noloshooda de walaalo waa dareemi kartaa dadkii qaybna laga laayay ee kuwa kalena sugaya waa dareemi kartaa ciidiga meesha taagan waa dareemi kartaa waxbana ma cunno waxbana ma cabno waxba yaraadee naga daga oo cuntii ma jirto hadda inta dilku lagu bilaabay muddada aan ku qabtay maalinka maanta ay kulaaday intii dhaxaysay de wax naga daga ama cunto ama biyo ma jirto xaaladnimada horta xaaladul xaalka iyo wabitalaantaas aan ku noolahay markay xaaladdu daba saartay waxaan universal qaasatan aan idin soo wacnay inaad na gudbisaan codsiganaga iyo wareysigana inaad noo gudbisaan oo noogu gudbisaan madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamed inaad noogu gudbisaan oo nimankan naga soo gaadho wixii lagu soo gaadho wixii baxayda Ilaahay baa qaatay uga tagay wax naga nool inuu naga soo gaadho inaad noo gaadhisaan ayaanu ka codsanay ummadda Soomaaliyeed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed ugu horeeyo iyo mudane ra'iisul wasaare Xamdi Cabdi Barre uu ku xigo inaad codsiga naga gaadhisaan ayaanu idiga codsanaynaa laba kamid ah raggii idin la xirnaa ayaad ii sheegtay in shalay xabsiga laga bixiyay kadibna la dilay maxaa xigay marka waxaa xigay de wax xigi kara hadda waa in aan sheegay silsiladu halka ka socoto macna dilku de maalinba laba ama saddex ama afar sida loo kala reeyay iska socoto weeyaan waxaan sugaynaa wax kale oo sugaynaa ma jirto anagu oo kale oo noo hartay ma jiro hadda ma garatay marka xaaladdu sidaa weeyaan walaal ku yaal ninka kale isaguna saaxiibka ila taagan baa isagana aan kugu dhibaya isagana waa laaleysa haye idib السلام عليكم وعليكم السلام سودو ولا المقعد يقول بلاو ولا محمد عبد الحسين اللي هذا هو بالفيصل والسلام يا بعد
boqol iyo afartan baan isku salaamayaa xaaladaydu dee ninkaasa kaaga warbixiyey niyow dilku dee niman walwal iskaga noolo waxa weeye dilku socdaanu nahay markaanu nimanka jeelka haysta aanu la hadalno waxay yidhaahdaan oo madaxda meesha haysta ay noo timaado aanu cabadkii waxay nagu yidhaahdaan war nimayow madaxweynihiina oo yimaado oo u yimaada ninka waddanka haysta oo qaabila oo magacyadiina soo qaato yidhaa war dadka ii cabbi adigaad ku xidhantii annagu mas-uuliyaal baanu nahay maalin baa dilaya soo saarayna ma garato walaal marka keliya waxaan u baahannahay waxa weeye duco iyo madaxweynaha madaxa meel la taabto ka saraysaa ma jirto madaxweynaha soomaaliya oo yimaada oo ninkaa yidhaahda waxa weye waxaan kaa codsanayaa dadkaa dilka ee madaqatina shaam ku xidhan iyo inaad ii cabbi intaa keliyaan u baahannahay walaal gaari iyo faysal waad isalaamayaa saasaan idiin soo waray waa gartay madaxda safaaradda Soomaaliya iyo Soomaalida kale ee Sacuudiga joogta ka waran iyagu ma la hadasheen xaaladiina siday ugu lug leeyihiin walaal gaari waxa weeye horta arintayadu muddo sanad iyo barba waa qaylinay meesha waxa joogta safaarad iyo qusuliyad labadaba ma garad waxa weeye laba jeer baa madaxweynuhu yimi labada jeer ba magacyadaydan waxaan ku madaxweynaha ugu dhigay boqorkan ugu tagay waa gudbiyay waxna ma garad daliisha koobaad waan xusaaraynaa waxa weeye safaaradda iyo jaaliyadda labaduba wayna hagradeen ugu dambeyn maxaad codsanaysaan marka waxaanu codsanaynaa ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliya oo soo dhaqaaqo kaliya baanu anagu ku xirnaa oo yimaada mablakada oo ninka waddanka haysta u yimaada taa haddii la helo xal baanu yeelanaynaa ama dad sabray baanu noqonaynaa laga sabray ama wadda la siidaaya baanu noqonaynaa walaal gaariye dagaalamayaasha al-shabaab muddo 20 maalmood ah ayaa loo qabtay in lagu soo afjaro waxaana qorshaha ugu weyn ee arintaasi fulinaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage iyo wasiirka cusub ee gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale Odawa Yuusuf Raage ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab lagu soo afjari doono maalmo kooban qorshahooda sida uu yahay deegaanada ay gacanta ku hayaan hadda iyadoo dadaaladii ugu dambeeyay ee wadaan mas'uuliyiinta gaar ahaan Axmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawa Yuusuf Raage waxa ayna sidoo kale sheegayaan xogihii ugu dambeeyay in kadib markii wasiirka gaashaandhigga xilka uu la wareegay in hadda qorshihiisa ugu weyn uu yahay la dagaalanka al-shabaab oo diiradda uu saarayo sida qorshaha ugu weyn uu sameynayo waan arki doonaa qodobkaas aragtidaada kasoo dhiibo taliya Arsade oo kamid ahaa maxaabiistii ku xirneed magaalada ama sidoo kale deegaanada Puntland ayaa waxa uu ka shifay xog muhiim ah waxa uu sheegay in dagaalkii ay Somaliland la gashay Puntland iyo SSC Khaatumo oo ay u maleynayeen in janno ay ku galayaan welina uu aaminsan yahay waa sida hadalku uu dhigay xabsi ku yaala Puntland ayuu maalmo ku xirnaa ma sanado ku xirnaa ugu dambeyntiisa waa la sii daayay hadda samar uu walaas bixinay wuxuu sheegay in xabsigaasi uu u arkay isagu inuu ahaa xabsi ay janno ama uu ahaa ama dagaalkaasi uu ahaa mid ay janno ku raadinayeen ilaa ay hadda uu aaminsan yahay in jannadaas ay ku helayaan waana arinta la yaab kale ee soo korortay runtii bulshada Soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ay kaga falceliyeen saacadihii ugu dambeeyay waad ku maasantahay daawashadaada ilaa ay dhamaadka diiwaanada joogtay subscribe saar bartaan ku soo bir si aad u hesho wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay